malaha oran maayo way qaldanayeen cidii ugu qortay laga fiicnaa maadaama ay madaxweynayaashii afkan u dadaaliyay joogaan oo iyagu ay ka hadli doonaan sida awadeed ma garanay meeshan ka bilaabo waxaan idin leeyahay labada madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha baarlamaanka wasiirada dhammaan marti sharafka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii malaha dee wax qurahaatay unbaa ii bannaan waxa weeyaan inaan hambaliyeeyo ummadda Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadasha oon ku hambaliyeeyo inay helaan hoggaan iyo aqoon-yahan isku duuban oo ka wada shaqeynaya afkoogii oo ah jiritaankoogii waxaan si gaar ah u hambaliyeynayaa madaxweynahayga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dadkii iga horreeyay oo dhani ay tilmaameen inay muuqato wixii uu ka taray ee uu ka qabtay afka maaf Soomaaliga waxaan leeyahay madaxweyne hambaliyo xafladda maanta halkan aan joogno tu la mid ah ayaa Djibouti ka dhacaysa oo lagu xusayo maalinka afka hooyo laakiin waxaa door biday inaad kala qayb gasho walaalahaaga Soomaaliyeed oo ugu timaado Muqdisho waxaad horseed u noqotay oo hormuud u noqotay nooleynta dayactirka af Soomaaliga ka warhaynta iyo dhawritaanka dadka ka shaqeynaya waxaad qaban qaabisay in la sameeyo akaademiyad goboleedka maanta loo fadhiyo dhagax dhigayga waxaanad u samaysay oo waqti badan iyo xoolo badan ku bixisay inaa la soo saaro qaamuuskii salka u noqon lahaa akaademiyadaas waxaad sidoo kale sanadkan amar nagu siisay in la qaban qaabiyo shir la mid ah kii Djibouti lagu qabtay 2012 ee lagu xusay qoraalka far Soomaaliga shirkaas oo maanta lagu qabanayo Djibouti 2 maalmood ka bacdi isniinta hadii Ilaahay yiraahdo oo ah 40 guurada qoraalka farta cafarta taasi oo iyaduna marxaati u ah tilmaana u ah inuu yoolkaaga iyo hadafkaagu yahay in la ilaaliyo oo la dhowro lana nooleeyo oo labada af iyo labada dhaqan oo sal u ah jiritaankeenna waxaad sidaas samaysay adigoo aaminsan horena u sheegay in ummadda jiritaankeygu uu yahay dhaqankeyga iyo diinteeda laakiin intaa horteed malaha madaxweyne waxay dadku inta badan tilmaamaan buugaagtii la qoray intaad madaxweynaha ahayd xarumihii dhaqanka ee aasaastay shirarkii afka loo qabtay laakiin waxaas wax ka weyn ayaa jira oo aan jecelahay inaan sheego waxa weeyaan samaynta dadka ku hawlan afka iyo dhaqanka oon anigu ka mid ahay waxaad maaragtaanay abuurtay oo soo saartay jiil leh wiilal iyo gabdho oo ka shaqeeya hawshaasi oo aad ku barbaarisay jacaylka afkooga aad ku barbaarisay jacaylka dhaqankooga iyo ka shaqeyntooda hawshaasina runtii waxay ka dhigtay Djibouti inay noqoto meel iftiinka dhaqanka iyo afku uu maaritaanay ka baxo waxaan hambaliyeynayaa una mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii aanu nal nimidnay akaademiyadda iyo daryeelkeega iyo inay dawladda Djibouti oo madaxweynaheegu uu horeeyo ay rabaan inay akaademiyadii halkan loo soo raro gacmo furan ku soo dhaweeyay si maaragtaanay hagar la'aan ah dhulkii u siiyay
wixii ay kharash iyo wax u baahdana u huray isagana aad iyo aad ayaan maaraytaanay ugu mahadnaqaynaa waxaan tacsi tiiranya ku dheehan tahay ka bixinaynaa dadkii ku dhintay qaraxyadii gacan ku dhiiglayaasha al-shabaab ay shalay ka geysteen muqdisho intii xanuunsanayd aan ku dhaawacantayna waxaan leenahay allah caafiyo inayaal waxaan idin leeyahay hambaliyo waxaan idin leeyahay ummadda af Soomaaliya ku hadashana hambaliyo waxaan leenahay jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana hambaliyo ayaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi dhowr iyo 40 sano fartaan ay qornaydna horumarka ay samaysay buugaag badan lagu turjumay oo luqado kale ku qornay oo dadkeenu aanay fursad u heli lahayn inay aqristaan maadaama ka gaartay wasiirkeena reer Djibouti hadda halkan ka hadlayay wuxuu ka mid yahay dadka juhdiga badan geliyay buugaag badan oo luqado kale ku qornay muhiimna noo ah taariikhdeena muhiim u ah iyo jiritaankeena iyo xataa muxuu istiraatiijiyad inaan degsanno muhiim noogu ahaay oo luqado kale ku qornaana dadkii turjumo ka mid yahay oo ku qoray af Soomaaliga waxaan leeyahay waa mahadsantahay maxaa